بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وسلسلة دي مانديق كوربا كحرا سومالي يوردن أيا إسكاله أنيقو أحمد نور محمد عبد الله وندين دهينية. runtii ummadda Soomaaliyeed intay ka gudubtay arrinta sool dhibaatada laga wado wareerka laga wado oo uu hoggaanka ka yahay muuse biixi cabdi ayaa maanta joornaal kasta iyo dhammaan kanaalada warbaahinta ama meediyada ay ka sheekaynayaan gardarrada aad iyo aad u ballaaran ee ninkaasu uu ka wado baabi'inta kala goynta kala dheeraynta midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo gardarrada uu dadka Soomaaliyeed oo deriska ay yihiin ilaa ii raaca tayda raaca meel kale uma leexan kartaan uu guryahoodii iyo dadkii walaalihiisahaa gardarro halkaas intii muddo uu ku baabi'inayay intii ay dul qaadan karaanna ay dul qaateen markii dambana alamtara uu soo dhaafay markaasna dhallinyaro iyo waayeel culimo iyo dhaqan iyo nin waxgarada rag iyo dumarba dhallinyaradiina ay ahaayeen kuwii marka horeba kacay ayagana garab iyo gaashaan meel walbaba loogu taakuleeyey si karaamadooda sharaftooda qiimahooda loo dhowro sidaad la socotaan ummaddu waa dundun bay isugu xiran tahay reer isxaaq waa reer isxaaq reer harti waa reer harti waxa sidaasay u socdaan wax walbaba qaab bay leeyihiin Soomaalidu waxay tiraahdaa jiirkiisa la hayste jidinka kaba qoslo markay arkeen walaalkood oo la gardarraysanayo isla markaasna Siciid Harti ul iyo diir isku noqdeen oo dhexdoodii ay ka midoobeen isku xirmeen fikraddoodii inay meel tahay markay arkeen kuwii la dhashay oo ay walaalaha ahaayeen waa u soo gurmadeen waayo Soomaalidu maxay tiraahdaa doofaar ficil la'aan ayaa loo cadaabaa qas iyo wareer iyo dhibaato iyo huuhaa iyo balaayo iyo waxaan jirin yuu meel walbaba adduunyada ku faafiyey oo been ah waxaasoo dhanna waxa uu suubinayaa waxaasoo dhanna wuxuu u waqti dheeraynayaa horay baa lu sheegay waa doorashada tan ucid iyo waddani nin uga dambeeya xil uusan doonaynin laba sababood baana oo asal ah
midna waa diliinkii badnaayoo dadka uu soo laayay midna waa hantidii uu dhacay arrintiisaa marka waxay taagan tahay xaggee ka baxaa meel alla xaggee ka baxaa meel alla waxayna la noqotay inaan cidba ka harin marka reer isxaaq ilaahay caqliga kaba qaado ilaahay fikradda kaba qaado way wada diideen haddeer inay ciidamo u soo aruuriyaan war nagala tag bay yidhaahdeen waayo soomaalidu waxay tidhahdaa dumarna meher baa xira ragna ballan baa xira ninku hadduusan ballan lahayn waa nin diin daran oo aan diin lahayn walowba uu sharcigii diinta islaamka uu dastuurka waxa lagu heshiiyey iyo axdiga lagu heshiiyey uusan ahayn haddana dadku waxay ku heshiiyeen in siday ahayd loo fuliyo ayaa wanaagsanayd layskula dhaarsaday haddaba middaas halkaa markaan uga tago oo aan idhaahdo reer khaatumo ilaahii weynaa oo waaxidka ahaa ayaa u gargaaraya ilaahay daalimka ayaa qofka daalimka ah waa ka hiiliyaa qofka madluumka ah ayuu u hiiliyaa indha sarcaadka ku dhacay muuse birihii waaweynaa markii arkay hubkii waaweynaa markuu arkay ciidamadii meesha la isugu soo aruuriyey indhihiisu ay arkeen wixii yuubu xubays yiriba waa baabi'in kartaa eber baad ka dhigi kartaa cid kastaba ilaa uu yidhaahdo dowladda dhexe ee soomaaliya hadday aamusi weydo tallaaban ka qaadayaa uu afkiisa ka yidhi kibirkana ilaahay baa iska leh ninna ma dhihi karo waxbaan baabi'inayaa nimaan ilaahay baabi'in cid baabi'in karta ma leh waxaa weeye dadka soomaaliyeed dhulka cid kale ma leh min raas kambooni ilaa raas casayr gabar soomaaliyeed nin soomaaliyeed guri soomaaliyeed cid kale cisho karta ma laha waa laysku xiran yahay mid baa la yahay wiil iyo adeerkii iyo abtigii baa la kala yahay waxyaabaha aan ku wanaagsanayn wada jirkeenna ilaahay raalliga ka yahay ha laga joojiyo ummadda horey baan u sheegay qabiil ka wanaagsan ma leh ninka xun asagaa xun reer isxaaq ninna ma caayi karo dadka qayliya ama dumar ha noqdeen ama rag ha noqdeen waa dad kool bokisa oo la soo diray ayaa qayliya qolo kastaba oo ninkaas hoggaanka ahi uu soo dirsado waxbaa ka qaylisiinaya waayo bini aadanka dantiisu waa baahi iyo dhereg hadduu dhergan yahay qayladiisu waa yar tahay hadduu baahan yahayna qayladiisu waa badan tahay waayo tenega weeye tenega markay wax ku jiraan qayla ma leh foori ma leh markuu maran yahayna hawdaasu ku haynayaa ilaa waa maran yahay ilaahay dantiisana waxa weeye waa mid marba sida uu rabo inuu u kala nadaamiyo asagoo ku kala haadinaya ku kala sifaynaya ku kala wanaajinaya qalbiga bini aadanka sida asagu uu ka rabo waayo qadaha iyo qadarta asagaa leh qof walbaba marka khaladka uu suubiyo oo adduunka ku suubiyo oo qowl iyo ficil ku dhacaya aakhiruu la tegayaa
camal baana hadhow xisaabtankii labadoodoo laisku daray camal bay noqonayaan. halkaa waaye marka midda laga abaalmarinayaa. waxaa weeye waa codsi, waa arrin guud. ha la ilaaliyo dhammaan qabiilada Soomaaliyeed oo dhan. ninna yaan wax laga sheegin, ninna yaan wax laga sheegin, ninna yaan wax laga sheegin. qabiil dhan ma xumaan karo, laakiin waa hoggaamiyaha, waa hoggaamiyaha, waa hoggaamiyaha. dadka uu ka qaylisiinayana waa dadka shilimaadka uu soo siiyey. tusaale yar, ninina adeerkiisa oo aan u malaynayo runtii 60 sano inuusan ka yarayn, oo askariya oo 120 mushaar u qaata, oo lagu qabtay goobta lagu dagaalamayo. maxaa ku keenay markii la yiri? wuxuu yiri baahi baa i keentay oo qoys baan leeyahayoo lacagtaasaa fiirsanayay. soo naxdin ma aha, soo naxdin ma aha, soo baahi ma aha. ilaahay marka uu leeyahay irxamuu man fil ardi yarxamakum man fi samaa'i, war u naxariista kuwa jooga dhulka aan kuwa samada jooga aan u naxariiste. waayo jannadu samada ayay ku taallaa. haddaba waa waxaan maalin dhoweyto dhowr jeer ugu ammaanayay tallaabooyinka garaadada dhulbahante ee SSC ay ummadda ugu dhimrinayaan. kii dhaawacana ay u dhayayaan, kuwii iska soo dhiibana ayagoo xaragoonaya gurigooda ay aadayaan intay quraacdaan ama qadeeyaan ama casheeyaan la kala qaadanayo. balaayo ninkii garanaya ayaa baaska dadka ka ilaaliya in baas uu ku dhaco. marka dad aqoon laa tihiin garaadada dhulbahantow. waa aqoon, waa garasho, waa ilaah ka cabsi. nin allaale ninka Soomaaliyeed oo asaga isi soo dhiiba, waddadii aad marsiiseen, kii dhaawaca oo aad heshaan, oo aan la israacin, oo la dhayo, oo la wanaajiyo. waxaan waa adduun. adduunna fiiriya, aakhirana fiiriya. adduun ninkii ku fiican ogaada, aakhirana waa ku fiicnaadaa. aljazaa'u lixsaan ila alixsaan. kulli nafsin bimaa kasabat rahiinatu. haddana naf walba waxay kasbatay leedahay. waa inoo wanaagga, waa calankaa buluugga ah, waa midnimada Soomaaliyeed, waa qarannimada Soomaaliyeed, waa haybadda Soomaaliyeed, waa ummaddaa Soomaaliyeed oo walaalaha ah, oo wiil iyo adeerkii iyo abtigiya oo isku xiran. run baana idiin sheegayaaye kulli mid baa la wada yahay. yaan waxba hiraab hiraab iyo hihi iyo dirdir iyo keerkeer iyo biiqbiiq iyo maya. magaca dibiga ah waa Soomaali. kulligeen Soomaaliyanimo ayaan u halgamaynaa. cadowga shisheeye oo isku keen dirdiraya oo marba luuqa naga soo galaya iyo balaayada aan wax garan oo dhexdeenna oo wax qasaya, kulli ka digtoonaada. ilaahay hayna hanuuniyo, ilaahay waddada toosan hanugu aadiyo, ilaahay midnimadeenna qalbiga isagaa rogroge ha ka shaqeeyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.